Assalaamu calaykum, waa anigoo ah Dalmar Maxamuud Maxamed. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeenii labaad, cashirkaasoo ah conversation ka kooban ilaa iyo 3 page. Sidoo kale cashirka dhammaadkiisa waxaan idiin wadaa oraah ama xikmad aad u qiimo badan. balse intaan cashirka u gudagelin waxaan ku xasuusinayaa janaalka inaad subscribe inoo saarto, sidoo kale like-tana ay inoo saarto. Haddana waxaan gudagelaynaa cashirkeenii page-kiisii koowaad. Okay, haddii aan cashirkeena usii gudagalno, conversationka waxaa ku sheekaysanaya ama ku wada hadlaya laba wiil oo kala ah magacooda Hanad iyo Said Cali. Hanad ayaa hadalka bilaabaya, waxa uuna leeyahay, Hello Said Cali, how are you my friend? Haye Said Cali, sidee tahay saaxiib? Said Cali wuxuu ku jawaabayaa, I am fine my brother. Waan fiicanahay walaalkayga. Hanad ayaa haddana mar kale su-aasha weydiinaya, waxa uu leeyahay, My brother Said Cali, today I want to ask you a little questions. So, are you ready to answer my questions? Said Caliyow, maanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo iska yaryar. So, diyaar ma u tahay inaad ka jawaabto su'aalahayga? Said Cali waxa uu leeyahay, No, maya, I am not ready. Diyaar uma ihi to answer your questions. Su'aalahaaga inaan ka jawaabo diyaar uma ihi. I am busy. Mashquul ayaan ahay. Because maxaa yeelay I'm watching film. Waxaan daawanayaa film. Meesha film wax walba ku bedeli kartaa markaas aad daawanaysid, qasam waa inaad film daawatid. Okay, Hanad wuxuu sii leeyahay, Okay, waayahay, but laakiin I would like waxaan jeclaan lahaa to answer inaad ka jawaabto some of them, qaar ka mid ah. Said Cali waxa uu leeyahay, Okay, I will answer 5 of them. Waayahay, waan ka jawaabi doonaa 5 ka mid ah. So, realize what you have. So, marka soo daa waxa aad haysid. Waxaan u gudbaynaa page-kii labaad. Okay, 5tii su'aal uu Said Cali soo dhahay, 5 su'aalaan ka jawaabayaa, inta ayay ka bilaabanayaan. Su'aasha koowaad oo Said Cali la weydiinayo waxay u dhacaysaa sida tan. The first question, su'aasha ugu horeyso is who was the first president of Somalia? Kumuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya? Su'aashaas ayaa la weydiiyey Said Cali, isagana wuxuu ku jawaabayaa sida tan. First president, madaxweynihii ugu horeeyay of Somalia ee Soomaaliya was wuxuu ahaa Aadan Cadde. Aadan Cadde ayuu ahaa. Second question, su'aasha labaad ee Hanad uu weydiinayo Said Cali waxa ay tahay, Tell me, ii sheeg, how many rivers does Somalia has? Imise webi ama meeqa webi ayay leedahay Soomaaliya ama ay haysataa? Said Cali waxa uu ku jawaabay, Somalia has 2 rivers and they are Jubbe and Shabeelle. Soomaaliya waxay leedahay ama waxay haysataa 2 webi oo kala ah webiga Jubbe iyo webiga Shabeelle. Hanad su'aasha saddexaad uu weydiinayo saaxiibkiisa Said Cali waxa ay tahay question 3. How many directions are there in the world? Ama directions are there in the world? Imise jiho ayuu adduunka leeyahay ama meeqa waaye? Said Cali wuxuu ku jawaabayaa, There are 4 directions in the world. Halkaa waxaa jira ama adduunka wuxuu leeyahay 4 jiho, waxayna kala yihiin East,
west, north and south. waxaan u sii gudbaynaa beejkeenii ugu dambeeyay cashirka oo ah beejkii 3. waxaa halkan nooga bilaabanaya beejkeenii ugu dambeeyay cashirka iyo labadii su'aal ee ugu dambeysay cashirka. Su'aashan waxay leedahay how many prayers are there and list them. Imise salaad ayaa jirta inta ay yihiin tiri. Sadcale markaas wuxuu ku jawaabayaa there are 5 prayers, waxaa jirta 5 salaadood, and they are waxayna kala yihiin sunrise prayer salaada qorax soo baxa, noon prayer salaada duhurta ama 6 saaca, afternoon prayer salaada oo galabtii ama casirka, iyo sunset prayer salaada qorax dhaca, and evening prayer iyo salaada fiidka. meesha anaga aan ka dhahno salaad subax iyo salaad duhur iyo salaad casir iyo maghrib iyo cishe. 5 salaadood ayaa jirta ayuu leeyahay. Okay, waxaa la weydiinayaa Hanad wuxuu weydiinayaa saaxiibkiis su'aashii ugu dambeysay last question, su'aashii ugu dambeysay, su'aashaas oo ah su'aal diini ah aadna muhiim ugu ah dadka islaamka ah. waxayna leedahay sida tan: can you tell me ma ii sheegi kartaa 5 pillars of Islam, 5 tiir ee islaamka ma ii sheegi kartaa Sadcaliyow? Sadcali wuxuu leeyahay wuu ka jawaabaa, wuxuuna uga jawaabaa sida tan: 1 shahaadada ugu horeyso, there is no one worthy of worship ma jiro wax mudan in la caabudo except Allah, ilaa Ilaahay mooye, and Muhammadna uu yahay his messenger, rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam. 2 wuxuu leeyahay salaad, to pray 5 prayers, waa inaad dukataa 5 salaadood. 3 wuxuu leeyahay zakat, to give yearly charity, waa inaad bixisaa sadaqada sanadlaha ah, yacni zakada waa inaad bixisaa. 4 wuxuu leeyahay siyaam, to fast, waa inaad soontaa the month of Ramadan, bisha Ramadaanna waa inaad soontaa. qodobka ugu dambeeya waxa uu leeyahay xaj, to perform the pilgrimage, waa inaad xajisaa if you can, haddii aad awoodo. cashirkeeni maanta ee wada sheekaysiga ahaa meeshaas ayuu nooga egyahay. waxaan idiin sidaa hal oraah ama hal xigmad oo aad u qiimo badan, waayo hore waxaa idiin dhahay cashir walbo waxaan ugu dabamarinayaa hal oraah ama hal xigmad oo aad u qiimo badan. Okay, marka ila soco. oraahdayna waxayna leedahay no one stays with you permanently, so learn to survive alone. No one stays with you, cid kula joogayso ma jirto permanently si joogta ah, so marka learn baro to survive sida u noolaatid alone kaliga, yacni cid si joogta ah kula joogaysa ma jirto, qof walbo maalin buu kaa tagayaa, marka waxaad barataa si kaliga aad u noolaa lahayd. No one stays with you permanently, so learn to survive alone. aad iyo aad idinkaaga mahadcelinaa asxaabta ku xiran Hagardiid Tube. mar labaadna waxaa idin xasuusinayaa inaad janaalka subscribe inoo saartaan, asxaabtana aad gaarsiisaan 1 iyo 2 intaad awoodaan si ay uga faa'iidaystaan. waxaana idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo, tani iyo cashirka xiga.